dalka sideedaadi ee 10 dowladood ka mid ah ayaa wuxuu yahay dalka Holland. dalka Holland muddada joogitaankeedu waa 1 sano kaliya. haddaba fursadaha aad helayso ee dalkan haddii aad wax ku barataa waxay tahay walaalayaal inuu qofku gudbisto ama gudbisto codsiga fiisaha dalku joog ee loo yaqaano orientation year ama waxa loo yaqaan carabi ahaan sanatu at-tawjih. waa sanadka hagida si uu shaqo u raadsado qof ardayga wax dalka wax ku barta ama uu u bilaabo ama uu u aasaasto mashruuc isaga u gaar ah. waa fursada dalkaas aad ku sii joogi karto sifada ardaynimo ama jaamacadeed weeye markii aad dhamaysato. haddaba fursadaha shaqo ee dalka Holland ka banaan ayaa waxay tahay waa mid horta marka koowaad filashadeedu walaalayaal ay aad u sareyso iyadoo heerka shaqaalaysiinta ardayda jaamacadaha ka baxa ay dhaafsan tahay tira ahaan 90%. taasi maxay qalbiga kugu qaboojinaysaa hadiiba dalka Holland jaamacadaha ku yaala mid kamid ah aad ka baxdo oo aad shahaado ka qaadato inaad hore shaqo ka helayso iyadoo si gaar ah shaqooyinka looga helo dalka Holland ay kamid ka yihiin kuwa la xiriira tiknoolajiyada, arrimaha deegaanka iyo beeraha. kuwaas si gaar ah ay bad u tahay hadii aad la xiriirto waxyaalaha aad ku takhasustay inaad helayso. arrinka ku gaarka ah ee dalka Holland ayaa wuxuu yahay walaalayaal in ay tahay dalka Holland deegaan aqooneed oo taageerta hal abuurka qofku uu leeyahay. taasi waxay ka dhigan tahay hadii aad qof hal abuur leh aad tahay dalka Holland inuu yahay dalkii aad hal abuurkaaga kusoo bandhigi lahayd aadna uga miro dhalin lahayd. halka waxaan uga baxayaa iyadana dalka sideedaad. dalka sagaalaad ee kamid ah dalalka qofkii wax ku barta uu sii joogi karo shaqana uu ka heli karo ayaa waxaa kamid ah dalka Sweden. muddada joogitaanka ee dalka Sweden waa 12 bilood ama waa 1 sano. fursadaha haddaba aad halkaas ku sii joogi kartaa ayaa waxay tahay in dalka uu ku siinayo fiisa ku meel gaar ah si aad shaqo u raadsato ama aad u bilowdo mashruuc adiga ku gaar ah. arrinkaas milicsiga mudan ayaase wuxuu yahay walaalayaal in ardaydaas ay kamid yihiin xitaa ardayda u dhashay dalka midowga Yurub. macnaha ardayda dalalka Ingiriiska, Jarmalka, Holland ka timaada ee dalka Sweden taga iyo ardayda ka timaada Soomaaliya iyo Afrika iyo kulli dalalkaasi la mid bay yihiin bimacnaa tixgelin gaar ah oo la siinayo ma jirto. iyadoo haddaba qasab ay ku tahay weliba inay ugu yaraan 2 semester ay wax ku bartaan ama ay noqdaan kuwa waxbarashada ku qaatay gudaha dalka Sweden. fiir waa lagu fududeeyay hadii 2 semester kaliya dalka muxuu ahay Sweden aad wax ku baratay horaad shaqo ka helaysaa. fursadaha shaqo ee dalka Sweden ka banaan maxay yihiin? shaqooyinka haddaba ka banaan waxay hoos tagaan tiknoolajiyada, tamarta dabiiciga ah iyo caafimaadka. arrimaha ku gaarka ah dalka Sweden ayaa wuxuu yahay inay jiraan 2 la taliye oo jaamacadaha dalkaas u qaabilsan inay ku taageeraan isla markaana hagaan ardaydu sida ay u heli lahaayeen shaqooyinka. hadii arday aad tahay Afrika ka tagay gaar ahaan Soomaaliya laakiin aan aqoon habka shaqooyinka loo raadsado, meelaha laga helo, sida loo baarbaaro, sida muxuu ahaaye loo xoraansado hadii aad aqoon. dalkan ayaa waxaa lagu leeyahay Sweden wuxuu leeyahay la taliyaal jaamacadaha la shaqeeya oo ardayga jaamacadahooda ka baxa ku taageerayaba si uu shaqadaas u helo. halkan waxaan uga baxaynaa dalka Sweden. dalka tobnaad ee 10 dowladood ee xaqa ku siinaya hadii aad jaamacadahooda ka baxdo inaad shaqo hesho ayaa wuxuu yahay dalka Mareykanka. haddaba muddada joogitaanka dalka Mareykanka waa 12 bilood iyadoo 24 bilood looga dhigo dadka haysta takhasuska. waa si gaar ah ayaa iska fiiri dadka haysta takhasuska tiknoolajiyada, engineerinka iyo xisaabaadka. hadii aad saddexda mid kamid ah aad haysato shahaado takhasusi ah oo la xiriirta kuwaas 24 bilood bimacnaa 2 sano ayaad xaq u leedahay inaad joogto dalka Mareykanka. haddaba fursadaha ee aad dalka Mareykanka ku joogi karto muxuu yahay? dalka Mareykanka wuxuu siiyaa ardayda dalkaas wax ku barata ama ku dhamaysata fiisaha ku meel gaarka ah iyadoo loo sii marayo barnaamijka loo yaqaano optional practical training ama at-tadriib al-cilmi al-ikhtiyari. waa tababarka cilmiyeed ee qofku uu madax bannaan yahay ayaa loo sii maraya. haddaba shardiga laga rabo muxuu yahay?
shardiga laga rabo wuxuu yahay inaad dhamaysato hal sano oo waxbarasho ama inaad waxbarashada ku dhamaysatay hay-ad waxbarasho laga aqoonsan yahay dalka Mareykanka. Macnaha waxaa laga wadaa qasab ma aha inaad jaamacad ka baxday arday jaamacadeed inaad tahay qasab ma aha markaad Mareykanka joogto. maxaa qasab ah oo maxaa macnaha fursad lagu siinayaa in ay jiraan goobo kale oo waxbarasho haddii aad ka baxday oo shahaadada aad haysatid laakiin dalka Mareykanka uu aqoonsan yahay ilaa 6 bilood ahaato waxaa weeye shuruudda waad buuxisay. intaas kadib fursadaha shaqo ee dalka Mareykanka laga helo waa kuwa horta fursadaheedu ay aad u badan yihiin kalena duwan yihiin waliba si gaar ah dhinaca tacliinta. waxaase fursadda sii joogitaanka Mareykanka sii badinaya ayaa wuxuu yahay walaalayaal inaad taageero ka heli karto goobta aad ka shaqaynayso si aad u hesho fiisa ku meel gaar ah oo aad dalka ku sii joogi karto. bimacnaa goobaad ka shaqaynaysay kadibna fiisihii dalku jooga ka dhacay isla goobtii aad ka shaqaynaysay shirkadii aad u shaqaynaysay waxdii aad u shaqaynaysay ayaaba recommendation ka bixinaysa sidii aad xaq ugu muxuu ahaay heli lahayd in fiisaha lagu siiyo. bimacnaa marka adigu kaliya lama kuma muxuu ahaay dagaalamaysid inaad hayso fiisihii dalka ku joogi lahayd balse waxaa garab kugu siinaysa oo kula dadaalaysa isla goobtii aad ka shaqaynaysay. hase yeeshee waxaa ku gaarka ah Mareykanka ayaa isaguna wuxuu yahay joogitaankaagii ku meel gaarka ahaa inaad u bedelan karto mid xilli dheer aad ku sii joogto adigoo u sii maraya programka loo yaqaano Professional Work Visa ama تأشيرة العلم المهني وفيسها شقوين كرسمي نظام كاسات مريسا كدبنا محاد سمينيسا حق ويالنيسا إنا تسي جوجتو هدبا طبعا كاس دولاد وحي أهايين طبعا كدولادود هدي آد واحد كبرتيد آد حق ويالنيسو إنا دل كاس كشاقيسو بمعنى آد تسي جوجتو أو آد كشاقيساتو أما هدي آد قف حال أبور له تهي مشروع بالله بكرا تهي in aad muxuu ahaay dalkaas mashruuci aad ka bilaabanaysid guud ahaana nuxurka loo socdo uu yahay waxbarashada dalkaas haddii aad ku dhamayso inaad dalkaas aad sii joogayso aad ka baqaynin in dalkaas laga soo celiyo. haddaba waxaan rajaynayaa in ay fursad u tahay ardayda Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ka haysato markii ay jaamacadaha dalka ka baxaan inaysan helin goobo laga shaqaysiiyo iyadoo xaaladaha aad garanaysaan run ahaantii gaamuray ee dalka ka jira inay si gaar ah u saameeyeen dalkii talentiga lahaa dadkii xirfadaha lahaa dadkii jaamiciyiinta ahaa ee dalka wax ku soo beerin lahaa. taasi waa mid sidoo kale waxay ku sahlaysaa halkii aad lacago badan ku bixin lahaydeen barnaamijyo kale oo run ahaantii shul iyo shal ah bimacnaa aan garanti ahayn inaad helaysaan in tani bedelkeeda idiin noqoto oo sifo sharciya aad martaan waxa la hubo aad lacag ku bixisaan si la hubana aad u helaysaan. waxaan ka wadaa haddaan sii jilciyo halkii aad barnaamijyo kale oo 10,000 iyo 5,000 iyo wax la mid ah dad kale ay idinka idin noqon lahaayeen magafe qarsoon oo lacagtaadu aysan xataa aadan garan karin inaad helaysid in kale xataa qaarkood ay say u sugayeen ay ka qoosteen aad u gali lahaydeen inay idinka qiimo badan tahay barnaamijyadan la hubo aad muxuu ahaay ku bixisaan sifa sharciya dalkii aad ku tagtaan sifa sharciya aad ku joogtaan sifa sharci ahna aad ku shaqaysataan adoona cidna aysan damiinka ahayn adiga oo dalkii aad tagaysay iyo adigu aad tiin dad si toos oo wada xiriirayo cid khabaan ah oo idin dhaxayso adiga laaluush ka qaadanaysa ama dulmi kugu sameyn karta aysan jirin. gabagabadii marka waxaan leeyahay barnaamijyadaas ardayda Soomaaliyeed muhiim buu yahay gala goobaha laga apply gareeyo raadiya xogteeda raadiya iskuna daya in aad indhaha kala furtaan oo aad ka xorowdaan in dad kale ay damiin idin ka noqdaan wax idinku aad heli kartaan. aad baad u mahadsantiin.